shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay maantay dadka Soomaaliyeed dhibaato lagu haayo qaarkood dulmi ka jira guddiga doorashooyinka dowladda federaalka iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha dulmi ka jira oonan u dulqaadan weynay oonan dulqaadan doonin wax badan aan u soo dulqaadanay ayaan maanta meeshaan ugu hadli rabnaa ugu hadli rabaa waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed ama dalka ha joogaan ama dibadda ha joogaan waxaan u sheegayaa beesha caalamka dulmiga guddiga doorashooyinka iyo xafiiska ra'iisul wasaaruhu ay meesha ku hayaan dowladnimadii Soomaaliyeed iyo doorashadii Soomaaliyeed inay dib u dhac ku keenayaan ay caqabad ku yihiin ay dhibaato ku hayaan ayaan beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed baan u sheegaynaa oo dulqaadama doono oo dulqaadamayno dowladnimada Soomaaliyeedna dadkay ka dhaxaysaa ee qolo gaara oo kaligoor ayagoo ilmaadeera meel ku showra oo ayagu isku amaana dowladnimo inaan lagu gaarin waa loo yahay waxaas horaa loo soo maray horaa loo soo arkay xumaanteeda meeshan waxaan uga hadli rabaa war badan maanta inaan uga hadla ma rabo waxaan uga hadli rabaa kursiga 86 lambar hoob 86 lambarkiisu yahay oo lagu soo doortay Hirshabeelle gaar ahaan magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne lagu soo doortay ayaan meeshan uga hadli rabaa kursigaas habraaci madashu ku heshiiday kadib oo dhan lagu heshiinayay ayuu soo maray 101 qofood oo qabiilkiisa ha dooratay cid qabiilkiisa oo ka qaylisay ma jirin maamulka Hirshabeelle soo dhisay oo marqaati ka ahay guddiga doorashooyinka dowladda federaalka iyo guddiga Hirshabeelle waa joogeen xaadir ay ahaayeen madaxda Hirshabeellena waa joogtay 101 qofood oo kursigaas qabiilkii iska lahay ah ayaa dooratay laba nin ku tartantay labadii nin dhowr iyo 20 uu helay nin 80 xogaa uu helay kuraasta guddiga doorashada dadban meelaha qaarkood waxa ka dhaca kama dhicin Hirshabeelle doorasho xuruho xalaal ah ka dhacday doorasho dadku u siman yihiin ka dhacday doorasho aan kursi qabiilkii iska lahay qabiilan ahayn iyo loo xareeyay uusan ayna doorana ka dhacday oo kursi kasta qabiilkiisu doorto war ilaahay idigu dhaarshay 70 qofood oo kaliya 70 qofood oo ergaa ayaa 16 kursi waxay dooratay 90 daqiiqo waa la og yahay Muuse Geelle waa og yahay boosaasay ka dhacday ra'iisul wasaaruhuna waa og yahay kismaayo kuwa lagu dooranayna 70 ergaa dooro jirtay galmudug waxa ka dhacday hawiye iyo daarood iyo raxanweyn kursi qabiil lahaay doorteen waana joogaa lama celiyo hayo waxaana soo doortay hawiye iyo daarood iyo dir iyo raxanweyn soo doortay dhuusamareebaa lagu soo doortay waa la ogyahay qabiilkii iska lahaa la yaqaan qofkii loo soo doortaa la yaqaan lama celiyo hayo waxa ka soo uray kuraasta habraaca soo martay oo koonfur galbeed iyo Hirshabeelle waxa ka soo uray oo ra'iisul wasaaruhu ka urina oo sanka ula raaca oo yaani kuwa oo Jubbaland oo san haysan oo kuwa Puntland oo san haysan oo kuwa Galmudug oo san haysan waxa kuwa Hirshabeelle iyo kuwa koonfur galbeed ka soo caraya ama oo sanka ula raaca ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed in asiga la weydiiyaan aan rabi lahay horta asigaan weydiinayna maxamed xuseen rooblaan weydiinayna
waxa koonfur galbeed iyo hirshabeelle uga dhex bahay qaladka koonfur galbeed iyo hirshabeelle ka jira oon jubbaland ka jirin oon puntland ka jirin oon galmudug ka jirin taas waxaan weydiinaynaa maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha soomaaliya aan weydiinaynaa ra-iisul wasaaraha lama canaataana caanihii daadiyey haddou isleeyahay lama leh wax dhibaato ah oo doorashadaas caqabad ku ah oon asiga ahaynu ma jiraan sababtu waxa waaye asiga ra-iisul wasaare u ahay doorashadaasaa loo xil saaray dadkii kaloo dhammo ku shaqo lahay madaxtooyadii waa laga leexiyey 24 saac guddigaan bedel taliyahan bedel inta ku carar inta wax ka jooji inta ayuu ku jiraa doorashadii loo diray kama shaqeeyo waa amni kama shaqeeyo waa amniga oonu boosaasa ka shaqaynaynin iyo puntland ousan amnigeeda ka hadlayn ousan ka hadlayn jubbaland koonfur galbeed iyo waxuu ka hadlayo iyo hirshabeelle iyo muqdisho ku hadlo waaya war waxaas caqli maaha wax soomaali iskula jiri kartana maaha soomaali waxbay ku heshiiday maamulada gobolada madaxweynayaasha gobolada iyo madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa wax ku heshiiyey hal tallaab masaaro ahaa ra-iisul wasaaruhu arrintaas hal tallaab masaaro ahaa wax kale ka shaqeeyo ahaa wax uga dhex daadsan yihiin koonfur galbeed iyo hirshabeelle wax uga dhex daadsan yihiin haddii cadow soo weeraro galmudug ciidanka waa u dirayaa iyo ka daba tago geel u qalayaa ciidanka waa birimayaarayna geelna waa u qalayaa iyo ka daba tago ayadoo weliba dadkii ka soo jeeday galmudug ay ahayn dadka meesha ku diray beledweyne ayadoo habeen kasta hoobiye shabaab la dhaca ciidan loo soo diraa dowladdu ciidan u soo dirtay subaxii daba golaha wasiirada fadhiisayaasha yiri ciidanka la soo celi war ra-iisul wasaare anaga waxaas waa fahmaynaa in laga soo gudbaan u qabnay waxaas in laga soo gudbaan u qabnay aduu haddaad fresh tahay weli kuu dhiman yihiin annaga waxaas waa soo marnay soomaali waa soo martay soomaalina waxaas uma deeqaan waxaas madax looguma noqon karo soomaaliya waxaasoo dulmiya iyo waxaasoo cadaalad daraa soomaaliya madax looguma noqon karo shanta isteed inay kuu sinaadaanaa la rabaa wixii qaldanin waxaan waa qaldayin oo saanay u qaldayin aad tirahaa loo baahan yahay laakiin kursi 101 qofood dooratay oo qabiilkiisii doortay waxaad fiiri see adiga warkaaga aan u qaadanaynaa kursiga qaladaa ka jira saan kaaga yeelaynaa kursiga ayadoon la dooran 86 ayadoon la dooran aad warqad soo qortay aad tiri kursigaas lama dooran karo war kursiga ma adigaa iska lahay kursiga kuraasta soomaaliyeed ma uu ka mid ahayn qabiilka soomaaliyeed qabiil ka mid uma uusan lahayn goob doorashadiisu mayna beledweyne ahayn ayna hirshabeelle ahayn maxaad warqadda u soo qortay kursiga ayadoon doorashoba la gaarin ooma la soo dhejin aad warqad soo qortay hadda waa qalad iyo wasaxsaa lagaaga dhegaysana war waxaasoo dulmiya wixii soomaali ku kala tagtay soomaali isku dishay soomaali ay dowlad isha maantay soomaali isha maanta leedahay cadaalad darradaasaad ka shaqaynaysid iyo wax lamid ah u dhiga niman qabiilahoo iyo meel iskugu taga meel ku shirshira ayagu isku ammaana gabdhahoodu u carab dhabaan waxay rabaan isku sheega dowladnimo maahan dowladnimo waxa waaye cadaalad iyo qofo waxay qaban karta inay qabato in wixii lagu heshiiyey la dhowro ra-iisul wasaare wixii lagu heshiiyey dhowr haddii hadda annagu aad isleedahay hirshabeellana baarlamaankeena sooma celi karto koonfur galbeedna dee hadda mugay ceshatay aa lasoo maslaxay kuraasaa koonfur galbeed laga soo maslaxay maxaa qalad ahaa mugii hore lagu celshay maxaa dadkii ku qancideen adigii guddigaagu maxaa dadka ku qanciseen anaa khayaarkay u ceshaday anaa khayaarkay u daystay waay war ra-iisul wasaaro waxa dadku ka dhexeeya waxaas maaha soomaalinimadu saas maaha dowladnimadu saas maaha cadaaladdu saas maaha wax dad ka dhexeeya haddii lagu dhiibo walaalow gacal sharhaalle ahow
نكلا لهي أنك وحان أشيغينا بيش عالمك iyo dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa kursigaas in cadaalad darro lagu haysto kursigaas inuu habraaci sax ah soo maray inuu doorasho xur ah oo xalaal ah la soo doortay inay fagaaro ahayd inana gees hoostiis lagu soo dooran inana ergey islaam